dhageystayaal daawadayaal waxaan ku suganahay guriga qoyska dhawaan wiil yar oo 2 jir ah uu ka dhintay oo meedkiisa la helay isaga oo jiwaan ku dhex jira meel halkan aan tagi doona ayaa laga helay bal waxaan rabnaa qoyskiisa la soo sheekeysano aan soo wareysano bal sida u dhaceen sidoo kale waxa jira in dad qoys kamida la xiray maalintii falka u dhacay oo wiilka la helay kadibna in la xiray dad ehelada kamida qoyska gudaha ayaan gali doonaa soo soco hagaag waa kana guriga familka waxaan wareysan doonaa familka qoyska oo naga ogolaaday inaanu warbixinna siiyaan soo soco aad baan u faraxsanahay inaan nimid guriga qoyskii maalin wiilka yarka ah laga dilay meedkiisa la helay dhowr bari kadib markii la waayay waxaan rabnaa inaan wareysano ninka odaga waa aabaha wiilka familku ninkan odaga kamid yahay insha Allah waxaan rabnaa inaan warbixin ka qaadno idaacadda Sahan ayaa hoygeena ku soo booqatay si aan macluumaad kaga helno soo dhawaada daawadayaal wareysi ayaan la yeelan doonaa aabaha qoyska iyo ninka odaga isaguna familka kamid ah insha Allah soo dhawaada idaacadda Sahan ku soo dhawaada waxaanu maanta idinku nimid inaanu idan la qaybsano dareenka arintii dhacday halkan ka dhacday qoyska wiilkii yaraa ka baxayaatiin waa aabaha wiilka yaraa ee dhawaan sida idinku soo gudbinay isagoo meedkiisa jiwaan ku jira helay dhowr biro la baafinay kadib sidoo kale qoysku waxay ka tabanayaan dib kale ah in la xiray ehelada qayb kamid ah marka waxaan inaan aabaha wareysano soo dhaw walaal magaca nagu bilow idaacadda Sahan weyn soo boqotay marka hore kadibna waxaad naga warbixisaa bal sida u dhaceen magacaygu waa Yuusuf Xabiib Umar Aadan baa la yiraahdaa wiilkan aan dhalay aabihiisaan ahay wiilka in muddo 5 maalmood baan raadinaynay maalintii ugu dambeysana waxaan ka helnay qashin qobka agteena asoo jabaan ku jiro kulay dibka wixii noo geystay aan garan mayno arin kala jirto wiil anaga familkeen ah baa naga xiran waxaan codsanaynaa wiilkaasi dawladda inay noo soo diiso laba xanuun laba dibkan aanu na gaaray haddana qofku xiran waa anaga familkeeni laba xanuun isku ma xamili karno in dawladda waxaan codsanaynaa in wiilkaasi dhaqsi badan noogu soo diiso qofkii dibkan geystayna si degdeg ah ay u baarto cadeen cad ay soo siiso dawladda waa gartay marka waxaad ii sheegtaa adoo mahadsan sidee ayaa wiilka marka lagu waayay wiilka maalinta ugu dambeysay mar ay tahay maqrabadii soo dhabiya qorxa intiisa dhicin xaafadda banaankeeda ku ciyaariyay gabadha dhashay hooyadiis iyo familka oo tacsiye kale naga soo gashay xaafadda kale kaamka kale bay u socdeen ay aadayeen ayagoo dhan xagee wada aadeen xaafadda dad weyn oo saa si weyn ma joogin wiilka ay ciyaar kale yar baa joogay markii ugu dambeysayna banaanku taagnaa guriga hortiisa ah kadibna meel oo ka baxay meel kale waa la garan waayay luuq noogu dhow baa la sheegay inuu ka sii laabtay ilaa ay markii ilaa haddana sidii baan raadinaynay qabartana ma joogin gabadha dad kale xaafadda way ka maqnaayeen waa gartay marka sidee lagu helay waxaan ku helnay maalinta shanaad soo 5 maalmood naga sii maqanyay waa maalinta shanaad baan waxaan ka helnay islaam qashin ku soo daadanaya xaafadda agteena ah baa wiilkii meedkiisa oraya meesha ku arkeen jabaan lugtiisa meel wax ka muuqdaan meeshii markii la fiiriyay in cunugii waa laga soo saaray cunugii oo meesha banaanka yaalo kartoon dul saaran baan ugu tagay waan gartay inuu asigi yahay waana soo qaatay xaafaddan keensaday dawladda waxay u taray wiilkii aan la aasin ilaa baaritaan aan ku sameeyno wiilkii waxay dhahay istaalka weyn baan geeyay abaar baa meesha ku sugayay kadibna waxay dhahaan wiilkaaga aaso waan soo qaatay wiilkii waan aastay waa gartay marka wiilka yarka markaad hesheen waxaan loo sheegay in jawaan ku dhex jiray meedkiisa meedkiisa jawaan buu ku dhex jiray jawaan baa ka wax calaamado ah oo loo geystay jirkiisa ma ka muuqato kulay ana wartay wiilka markaan arkay xaaladii caadi ma ahayn si fiican uma sii fiirinin laakiin sidii dadka badan ay sheegeen dadka igu horreeyay meedka soo saaray inuu madax dhaawac ku lahaa baa la sheegay marka caadi jirkiisa ma aha mase waxba ka bedelna marka aad hesheen kulay jirkiisa anu caadi way lahaa laakiin calooshiisa xageeda wiilka waa qormay uu raagay calooshiisna meel badan baa nabro ku yaaleen oo ma kala sheegi karin aniga waqti xaadirkaas ilaa jiray wuxuu jiray 2 sano iyo dhowr bilood ilaa 2 sano ilaa 3 bilood meelaas wiilka jiray waa gartay marka waxaan ugu maqaalaa markii la helay meedkiisa in kadib halkan ay yimaadeen ciidanka
dambaarista oo halka wiilkii la baaray waxa jira in dad la xiray dadkaas maxay yihiin dadka la xiray waa dad aniga familigeeni ah wiilka la xirayna waa wiilkii macallinkii shaqada isoo baray oo gabadhaada wiilkii dhashay ugu daray waa family uu kamid yahay arintaasna aad iyo aad baan uga xumaaday in aniga ehelkeygii qof kamid la xiro marka ma waxa loo xiray in door ku leeyihiin hawshan maxay tahay wax loo xiray waxa loo xiray kulli hadda anaga wax cadeena kuma hayn laakiin dawladda waxay tiri ninkan waa ka shaqeynay kulli ana wareysi baan laga yeeshay ciidamada CID baan na wareysanay kulli wareysigii saddex qofood baan ahayn la wareystay gabadh ani aan qabay iyo islaanta saddexday ahayd baa la wareystay kadibna waxaan arkay ninkii gaari la sii saaray oo indhaha laga sii xirayo wax lagu xiray iyo wax kale naada ma sheegi kara aniga ma kaligiis baa xiran asiga iyo xaaskiisa xiran xaaskiisa maxaa lagu xiray mar haddii asaga laga shaqeeyay hadda ma sheegi kartaas dawladda la weydiinaya inaan u tagno ninkii aan soo boqonaa waxay nooga sheegaan dawladda way noo cadeyn weysay waa gartay marka maxaa dareemaysaan kale hadda anu waxaan dareemaynaa dhibkii asoo nagu dhacay waa hadan dhib labaad dawladdii ay rabtaa inay sii geliso oo waa shaqaysan la'aanay meel waa aadal aanay cunugii tacsiyo oo dhigan la'aanay murugtii waxa nooga dhib banaatay cunugii naga dhintay dadka hadda naga sii xiran ilaa hadda ma jirtaa wax tuhuna ama wax xiriir leh wiilkiina cidii shay wax xaqiiqo ah ama wax tuhuna ma heshan ilaa hadda annaga wax tuhuna wili ma hayno cunugeena soo ku dhantayna dar ma cadeyn karno cidna uma qabsan karno waa gartay marka falkan hadda wiilkan lagu dilay hore ma uga dhacay falcaynkan oo kala deegaankan ma yabaan uma leenahay hore uga ma dhicin fal noocan oo kala hore uga ma dhicin kii ugu horeysay uma leenahay wiilkii inuu ku dhintay waa gartay marka hadda waxa laga joogaa muddo intii wiilkiina weysinadan ka badan baa waxa laga joogaa intii dadkaas ka xiran yihiin ilaa hadda cid jawaab idin siisay oo dawladda xageeda ma jirtaa cid jawaabna soo siisay malaha dawladda xageeda cadeen iyo cadeen la'aan cid waxna soo sheegtay malahan dadkiina meesha way iskaga xiran yihiin waxa ay ku xiran yihiin ma naqaan ilaa hadirtaan waa gartay marka walwal inta lag baa ka qabtan arintan walwal aad iyo aad u weyn baan ka qabnaa oo reerkeena hataa cunadii ciyaalkii joogay wax baa looga sameeyay la yahay intaas murugo oo dadkaas laga xiran aan u qabno laajigeed ilaa hadartaana wax cadeen ama haynay waxay ku haystaan intaba waa gartay marka wiilka gaarka ah ee la dilay ma wuxuu ahaa wiilka reerka ugu weynaa ma saacar kale ka imisa carruur ku joogtay wiilka reerka ugu weyn baa curudkaygu ahaa asiga iyo mid kale oo ka yar hadda umar laga soo baxay baa ii joogay kaas oo uga dhantay hadar hal wiil baa ii haray oo hadar umar laga soo baxay wax kale ma dhalin marka maxaa dawladda hadda fariin hawada marsinaysaa adiga oo radio sahan oo maanta kugu timid gurigaaga ay ku siisay inay ka duubto dareenkaaga ku aadan arintan kale waxaan codsanayaa aniga dadkaas iga xiran in la soo daayo anidaan wax cadeen lagu haynin meesha inay iskaga xirnaadaan khalad bay igu tahay taasna dhib baan u arkaa dadkaas iyo dhaqsiyaha badan la soo daayo rajo ma ka qabtaan in la helo dadkii falkan ka dambeeyay aad iyo aad baan rajo ugu qabaa aad iyo aad in dadkaasi arintan ka dambeeyay saan wiilkii u galay in la helo aan helo aad iyo aad baan ugu rajo weynahay laakiin hadii dabagal fiican si sameeyaan way heli doonaan waa maasantahay waxaan rabaa inaan siiyo ninkan asna odaga soo dhawow wuxuu qayb ka yahay familka dhibaatada ay ku dhacday waxaan dala qaybstaa bal dareenka arintan ay leedahay adigana dareenka arintan waxa waaye horta nimankan xiran gabadhan iyo wiilkan isqabo xiran markaan ilaahay ka baqno anaga iyo isaga iyo gabadha cunuga dhashay ayeeyada tacsiyaan wada joogna cunuga markii waa la qaatay cunugii waa la waayay marka lahay anaga shaqan ka haynay meesha marka anaga ma dhihi karno ninkaas aad falkan wax kule iyo horta ma dhihi karno waxa waaye falkan dawladda horta iyaday u taala si ku soo saar leed laakiin nimankan xiran wax cadeen aan ku hayno wallahi ma garan karno anaga oo marka waxa waaye cad in oo marqaatina aan ka hay in tacsiyada aan wada joogno cunugan waa la waayay markii la lahay marka sidaas wax u jiraan waa gartay marka qoyska arintan dhibaato inta leeg bay ku yeelatay familka dhibkan ku dhacay dib aad iyo aad dib waqtigii ilaa ay hadeertaan dhibkii la galay wali hadeertaan lagu jiraa walina wax cadeen oo hayna male marka sidaas oo dib u jiraan waa arrin ku cusub sida hadda la ii sheegay hadda kadib maxaa deegaanka ugu qorshaysan mar haddii ilmihii yar intii la wato la dilayo ilmihii yar hadda deegaanka waxa ugu qorsan nin walbaba inuu macnaha ishiisa banaanka la soo baxay de wixii nooca camalda kulli ilaala gooni ee loo sameeyo saasaa indhaha loogu wadaaya hadda waa in la iska ilaaliyaa
marka dareenkoodana waa dareemi karaan ayaga inuu dhibkaansan weligeed aanan ka dhicin hadeertaan oo tan uu ka dhacay marka ayagana waxaan leeyahay bal ilaa la gooni ah inay wada samaystaan kulli wixiiba deegaanka ah intaasaa nooga qorshaysan wiilkeerka waa goobtan qashinka sidaad u jeedaan waa qashin badan marka yaala wiil yar halkaa ku arkay jawaanka soo jira marka Allah naxariista saqiir buu ahaa